بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa telefishinka caalamiga ee Kalsan TV xaruntiisa wadanka Finland maanta waxaa marti inoo ah mid ka mid ah wariyaasha Kalsan TV ee dalkaasi Switzerland Cabdiqani Cali Darmar oo aan rabo inaan bal weydiiyo shir aanu ka wada qayb galnay midaynta jaaliyadaha qurba joogta Puntland oo muddo 3 maalmood ka socday Cabdiqani dabcan waxaad goobjoog u ahayd dabcan shirkaasi u socday waana markii ugu horeysay filaya oo Finland aad soo gaarto maxamed bashiir oo maasan tahay aad iyo aad aan kugu salaamaya marka hore adiga iyo telefishinka aan ka wada shaqeyno ee Kalsan TV bahdeeda runtii maalnimadii jimcada ahayd aynu soo dhaafnayaan imid dalkan Finland waxayna aad markii ugu horeysay taariikhda intii dalalkan Yurub jooga aan dalkan imaado waxaan u imid shir ay qabsanayeen qurba joogta reer Puntland ee qaaradda Yurub kaasi oo maalnimadii jimcaha ilaa iyo maanta ka soconaya magaalada tan Helsinki runtii marka laga eego waxyaabo fara badan oo shirkaasi ka soo baxay oo ah wax positive ah oo lagu guuleystay iyo jaaliyadihii dadkii ka soo qayb galaba booqashadii iyo imaatinkeyga dalka Switzerland dalka Finland ay raahe gaar ahaan magaalada Helsinki waxa uu ahaa mid aad iyo aad u wanaagsan dabcan shirku waxa uu ahaa midaynta jaaliyadaha Puntland aan raahdee qaaradda Yurub sidii dadkan ay isu dooranayeen wada tashigii faraha badnaa ay sameynayeen dabcan qaabkeedu aragtay maxamedow inkastoo Soomaalida aan wax dhameystiran laga helin oo dadku inta badan ay yihiin dadka Soomaalida dabeecada ah lagu yaqaan ay yihiin dad dhiman oo wax waliba aan loo dhamaanin haddana shirkan waxa waa shir wanaagsan inkastoo aan dareensanahay inay jiraan dhaliilo fara badan oo ah jaaliyado macquul ah oo ka dhisan qaaradda Yurub oo shirkan aan ka soo qayb galin gaar ahaan jaaliyadaha Switzerland iyo jaaliyada Jarmalka iyo jaaliyada Holland ogaalkeyga waxaa kaloo la ii sheegay inuu shirkan ka maqnaa agaasimaha qurba joogta Puntland oo dhawaan la soo magacaabay hasaatee marka intaas laga soo tago jaaliyadaha kale ee faraha badan ee fadhigan ku sugnaa marka la eego iyo waliba natiijadii guud ee ka soo baxday dadka kale aqoon-yahanada ah iyo madaxdii reer Puntland oo qadka telefoonka kaga soo qayb qaadatay oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdulle Cali Maxamed gaas oo saaki soo hadlaba shirkan waxa uu ahaa shir aad u wanaagsan runtii wala loo baahan yahay in dadka community-yada ama qurba joogta Puntland ama Soomaalida kaleba ama gobolada kale ee dalka ka yimaadaan ay sameystaan wax midaysan oo la oran karo wax bay hadhow ku qabsan doona wixii qaladaad jira iyo khilaafaad jira waxaan aaminsanahay in kadib laga gaari doono xal marka shirkan waxa uu ahaa runtii shir aad u wanaagsan wixii ka soo baxay runtii waa soo dhaweynaya Cabdiqani ma jirtaa wax dhaliila oo aad u soo jeedinayso maamulkii dalada Puntland ee Finland oo dabcan aad leedahay waxay ku ficnaan lahayd sidaas oo kale inay halkaas ay wax ka qaldanaa saas in wax loo saxay ahayd intii markii aan goobjoog u ahayn maxamedow runtii aniga intii aan joogay horta raggan aan u nimid martida aan u ahayn dalka Switzerland aniga iyo saaxiibkii ahaa kaamirada Dubai Cabdirasaaq Timcad aan ka nimid adigoo dalka Finland kimid dadka marti sharafta ah oo wax dhaliil ah oo aan oran karo alle leh dhaliishaasi ay raggan sameeyeen horta ma ii muuqato dad isku xiran oo soo dhaweynta ku wanaagsan oo ka go'an tahay inay wax qabsaan ay ahaayeen asaate tala u baasiin lahaa iyo soo jeedin oo ahaa in shirkan ay wanaagsanaan lahayd in xitaa dib loo dhigo si dadka loo helo maqan ama jaaliyadaha ka maqnaa loo soo dhameystiro hasaatee anigu shakhsi ahaan Cabdiqani Cali Darmar ahaan hadii aan bahda media aan ka socday bahda shabakada umada news aan horkacayay iyo rag kale tabay la socday wax dhaliil ah oo aan u soo jeedin halkan ma jiraan marka waan ku amaanayaa sida qiimaha badneed ay inoo soo dhaweeyeen ay inoo marti sooreen ay inoo sagootiyeen ay inoo garab istaageen inta martida u ahayn Cabdiqani aan kula kaftamay dabcan maadaama Finland markii ugu horeysay waa timaadada ahayd oo wadanku ugu cusub yahay gudaha iyo meelaha sharciyada ee magaalada dabcan gudaha waa tagtaan filaya aad iyo aad magaalada Helsinki waan tagay oo dhowr jeer ayaan haatan 3 habeenay ugu dambeeyay aan joogay ku soo wareegay waan tagay aad iyo aad waan tagay
markaad fiiriso labada dal adigu dalkii aad ka timid Switzerland iyo dalkan Finland dabcan ahaan meelaha isaga soo dhawaan karaan oo isleedahay way isaga dhow yihiin xagga dhismaha xagga dadka reer Switzerland ama reer Finland ah qaab nooc ayaad ku qiimeyn kartaa Cabdiqani maxamed runtii inkastoo dalalka Yurub ay yihiin dalal isku dhow marka loo eego muuqaalkooda ama midabkooda iyo dhismooyinkoodaba haddana Finland wax badan ay ka duwan tahay dalka Switzerland oo aan ka imid oo meesha aan ku noolahay ama aan deganahay hasaate waxaan ani hore u booqday dalal badan oo qaaradda Yurub sida Holland iyo dalka Jarmalka iyo Austria iyo Faransiiska iyo Talyaaniga isbedelo fara badan iyo waxa u dhaxeeya farqi marka Finland iyo Switzerland marka aan fiiriyo qaabka dhismooyinka magaalada iyo wadooyinka xitaa shacabkeeda ku nool wax farqi sidaas weyn uma dhaxeeyo marka laga reebo in dadka reer Switzerland ay dad mashquul badan oo aanan intaan haatan maanta la isku helay iyadoo ay tahay maalin isniin ama maalin shaqo ah aanan la isku heli karin oo dad wada shaqeeyo oo inta u orday inay howlahooda caadiga qabsaan laakiin marka si loo eego waa iska caadi wax farqi ah oo sidaas weyn uma dhaxeeyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqani Cali Dalmar oo kamid ah wariyaasha telefishinka ee Kalson TV ee u fadhiya xaruntaasi Switzerland oo ii suurta gashay inuu halkaan aan ku wada kulanno aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaad siisay ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد